بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، diinteenna xaniifiyada qaacidada ay ku taagan tahay ee loo yaqaano qaacidatul qawaacid asaaska ay isugu timaado ayaa wuxuu yahay jalbu almasaalix wa takhiiruha wa dar'u almafaasid wa taqliiluha, in wixii aadamaha maslaxo u ah adduunkiisa iyo aakhiradiisa loo soo jiido, loo keeno, lana kobciyo maslaxada oo la kordhiyo. wixii mafsada ee dhibana in laga hortago la baajiyo, haddii la wada baajin kari waayana in la yareeyo. waa asalka diinteennu ku taaganta oo ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aanka iyo sunnada wuxuu u soo dejiyey limasaalixi alcibaad, addoommada maslaxadooda iyo danahooda in la tuso, wixii dhibana looga digoo laga baajiyo adduun iyo aakhiraba ku imaan kara. qaacidada markaan u nimaadno, maslaxada iyo mafsadadu xad ma leedahay, bimacnaa wuxuu ka wadaa saa'ilku daabid ma leedahay. jawaabtu waxay noqonaysaa dhowr dhinac inaan ka tilmaanno. dhanka koobaad, horta maslaxa iyo mafsado miisaankeedu waa shareecada. miisaanu almasaalix walmafaasid waa shareecada. hawada bini aadamka iyo siday la tahay ma aha. yacni markaan doonayno maxaa dhib ah maxaa dheefa, miisaankee lagu gartaa? shareecadaa lagu gartaa, qur-aanka iyo sunnadaa lagu gartaa iyo wixii laga qaatay. laakiin hawada bini aadamka iyo siday la tahay ama uu jecel yahay, masaalixda iyo mafaasidda miisaan uma ah. waxaa yidhi islamaba keeni karaba, ruuxba waxbaa la quman, waxbaa la wanaagsan, waxna waa la xun yahay marka uu fiiriyo maskaxdiisa, garaadkiisa iyo hawadiisa. marka taa wax laguma miisaamo. waa qodobka koobaadoo ama daabidka koobaad oon dhihi karno miisaanku horta waa shareecada. wixii iyadu ay maslaxo ka dhigtay waa maslaxo ah, wixii iyadu mafsado ay ka dhigtayna waa mafsado. waa qodobka labaad, shay kasta oo la samaynayo, tilaabo kastood qaadayso, waa inaad fiiriso maxaa ka dhalan kara. waa waxa loo yaqaano ictibaaru alma'aalaat, yacni ma'aalaat alafcaal waalaqwaal. falka aad samaynayso iyo hadalka aad ku hadlayso maxaa ka imaan kara, muxuu xambaarsan yahay ama ka dhalan kara oo ama dhib ah ama dheef ah. waxaa ku soo baxaya marka 5 suuraa kuu soo baxaysa. su-aasha markaa isweydiiso waxaa ka soo baxaya 5. shaygan inuu maslaxo keliya yahay iyo faa'iido oo mafsadada inay la soconin, ama meehe waa maslaxo laakiin waxoogaa mafsada ah baa ku jirta. waa dheef, dhib baa la socda, laakiin dheeftaa ka badan. labadaa xaalo way bannaan tahay markaa oo shaygaa ama waajib ama mustaxab ama mubaax buu noqonaya. shay waajib ah samayntiisa ama sunno ah ama iska bannaan buu noqonaya. waa markuu maslaxo keliya yahay ama maslaxadu xoog badanta. suurada kale waxa weeyaan inuu shaygan ama tilaabadan aad qaadayso dhib iyo dheefba xambaarsan yahay, laakiin dhibkiisu badan yahay, ama dhib keliyaba yahayba, dheefiba kuma jirto, maslaxaba kuma jirto, waa mafsadiyo dhib keliya. ama dhib iyo dheef waa ku jiraane laakiin dhibkaa badan. labadaas suurana waa xaaraan inaad markaa tilaabadaada qaado. tilaabadaasi marka xaaraan bay noqonaysaa, leanna ama dhibkiioo khaalisa wey ama waa dhibkiioo qaaliba oo raajixa. waxaa inoo soo hadhay hal suuroo ah in ay maslaxada iyo mafsadadu isla ekaadaan. dhibkii iyo dheefkii markaad labada kafadood saartay, labadoodiiba waa siman yihiin. markaasi sida raajixa ah shaygaasi wuxuu noqonayaa xaaraan. inaad samayso ku tilaabsato xaaraan bay noqon. maxaa yeelay marka waxay ku fadhidaa dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix.
يعني مفاسد إن الريبة أي كهر رئيسة مصالح السوتشيدي ده حالة داسي وحالة اللي يدهده حالة التزاحم المصالح والمفاسد مصالح دي مفاسد دي بقى إسلئ كادو إسعيدي هي مركا مفسد ده الله مرنا يا شيخ ومركا حرام بنقونه شنطة حالات بمركا أوكلا بحيسة ضوابط ده علماء ودتشيه مرة كاسن كفيرين دنك لو واحد نفيرين أو يضنا في رمضان شرع هذا أحكام تهذا يمسائي شيء ومراتب مرتبطة كالواوين قيب واحد اللي هذا ضرورات قيبنا واحد اللي هذا حاجيات أما حاجات قيبنا واحد اللي هذا تحسينات ضرورات كوا واحد بني آدم كو لبات جاري سهدوسا هيلين لباك دلناي دينتيسا نفتيسا عقليسا حوليسا عرضيسا شرفكيسا لبا سو جاري ضرورات بالدهيا ومرتبطه هوري مرتبطه xigtay wax way xaaja la yiraahdayo waa baahi aadamuhu qabo laakiin haduu waayo ciriiri buu galaya laakiin dib weyn gaari ma laakiin ciriiri buu galaya xaaja la yiraahdaa taana tahsiinaad ba ku xigo waa kuwa ka hooseeya laakiin lagu qurxiyay kuwa hore ama waxay qurxinaysaa xaajiyaadkii ama waxay qurxinaysaa daruuraadkii saas daraadeed markaad miisaamayso mas'aladu ma daruuraad bay kula gashay maxaajiyaad bay kula gashay ma tahsiinaadkii bay joogtaa labadaba iyadana sidaas waa loo kala xoojinaya dawaabida meelahaasna waa laga fiirinay dhinac kale hadaynu ka fiirinana yaa sida wax u miisaami kara waa su'aasha muhiimka yaa sida wax u miisaami karo tilaabadan ama shaygan ama waxani dhibkiisa ma badan dheeftiisa ma badan maslaxa ma ku jirta mafsada ma ku jirta miyay simeeyeen yaa saa wax u miisaami kara waxa u miisaami kara al-aalim التقي العارف بالواقع عالم بالأحكام وعالم بالواقع والرباني تقي انت إن لقى هلوه روح أحكام تدينتنا أقون أوله وعالمة واقع يوحى كهاللينا فهنسن إسلامر كان الله كعبسي كتشره هي ورع حلال ميرت كتشره ninka way ninka miisaami kara masaalixda iyo mafaasida miisaami kara sidaas daraadeed intaaba hadii la isu fiiriyo masaladu dawaabid iyo xuduud bay yeelan laakiin markii laga saaro ama cidii fiirin lahayd baa waxa laga dhigay cid kasta ama cid aan mudnayn baa laga dhigay inay gasho iyo fiiriso iyo miisaanto waa khaldamaya marka natiijadu ama dawaabidii culimadu u dajisay baan la marin natiijadu marka waa khaldamaysa mafsada lagu dhacaya iyadoo marka maslaxa la raadinayo marka dawaabid way leedahay kutubna waa laga alifay culimada qaar ku takhasusayna waa jira oo muxuu ahay kutubaba si gooniya looga alifay cilmigan ku saabsan cilmu al-masalih wal mafasid wallahu a'lam